salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaanba. qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ee maalinba maalinka ka dambaysa siyaasadiisu si cakirmayso. sidoo kale taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo haddana ahaa la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya ayaa la sheegayaa maanta in lagu xidhay dalka Jabuuti. sidoo kale dowladda federaalka ayaa aad u dhaleecaysay xidhayga taliyahaasi. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dadka dowladda Soomaaliya ayaa aad u dhaleecay warmurtiyeedkii ka soo yeedhay madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha axmarada ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inay ugu yaraan 4 milyan oo qoomiyadda axmarada ay ku baxday dagaalka lagula jiro TPLF oo ahaa xisbiga ka taliya dowladdeegaanka Tigreega. sidoo kale mucaaradka dowladdeegaanka Soomaalida xisbiga ugu tunka weyn waa ONLF ayaa sheegtay gabi ahaanba in ay qaadacday doorashadii dalka Itoobiya ama doorashadii ka dhacaysay dowladdeegaanka Soomaalida ee lagu waday bishan soo socota horteeda inay dhacdo. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17-ka bisha 9 2021. haddaynu u gudagalo wararkeeni oo faahfaahsan, madaxweynaha qoomiyadda axmarada ayaa waxa uu sheegay dagaalka ka socda dalka Itoobiya ama waqooyiga iyo galbeedka gobolka axmarada inay ugu yaraan ku nafweyday 4 milyan oo qoomiyadda axmarada dadka soo jeedaha. hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo beegaya xilli ay dalka Itoobiya ka socdo dagaal aad xooggan oo u dhaxeeya dowladda federaalka oo ay hogaaminayso iyo maamulka TPLF. dagaalkan ayay dowladda federaalka ugu yeedhay magaciisa inuu yahay dagaalkii kala baxay ee TPLF-na gabi ahaanba looga saari lahaa gobolka axmarada. hase yeeshee TPLF ayaa maalinba maalinka ka dambaysa isku sii ballaadhinaysa dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka axmarada. madaxweynaha axmarada ayaa waxa uu sheegay inay TPLF gacanta ku dhigtay gobolka axmarada laba markii loo qaybiyo qayb ka mid ah inuu gacanteeda ku jiro. ugu yaraan 4 milyan oo qoomiyadda axmaradana ay ku waxyeelado dagaalka lagula jiro TPLF. shacabka qoomiyadda axmarada ayaa madaxweynaha waxay ku eedeeyeen inuu arintaasi ay tahay niyad jab aad u weyn oo laga qaaday dagaalka lagula jiro TPLF. shacabka axmarada ayaa waxay sheegeen in hadda ayna filayn waqtigan inuu madaxweynaha axmaradu intuu shacabka u soo gudbin lahaa guul laga gaaray TPLF inuu dhaho TPLF gabi ahaanba waxay qabsatay dhulkeena intiisii ballan 4 milyan oo axmarana way ku waxyeelowday. shacabka axmarada ayaa waxay sheegeen inuu sida ugu dhaqsaha badan madaxweynuhu isu casilo una baneeyo saaxadda siyaasadda si ay axmaradu uga tashato ayaheeda nololeed. sidoo kale haddaynu warkeeni Itoobiya ku sii socono, xisbiga ugu tunka weyn dowladdeegaanka Soomaalida waa jabhadda ONLF ayaa waxay sheegtay gabi ahaanba inay qaadacday doorashadii lagu waday inay dowladdeegaanka Soomaalida ka dhacdo bisha soo socota. bishan horteedii ayay ahayd markay laba xisbi oo ka tirsan xisbiyada ka diiwaangalsan dowladdeegaanka Soomaalida ay qaadaceen gabi ahaanba doorashada lagu wado inay ka dhacdo dowladdeegaanka Soomaalida. hadalka ONLF ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalka Itoobiya qalalaso weyn ka jiro dowladdeegaanka Soomaaliduna ay isu diyaariyeen doorasho inay halkaasi ka dhacdo. xisbiga ONLF ah xisbi aad u tuweyn dalka Itoobiyana aad looga yaqaan ayaa doorashadan kaaritaankiisa waxay ku soo beegmaysaa xilli dowladdeegaanka Soomaalida iyo maamulka Canfardu uu dagaal weyn ku dhaxmarayo xadka labada qowmiyadood. ONLF ayaa warmurtiyeedkeeda waxaa kamid ah waxaan u kalifay inaan doorashada ka hadna waxaa kamid ah guddiga doorashada heer federaal oo ka soo bixin waxyaalihii loo igmaday. ayadoo ONLF tiri waxaan u sheegnay inay qalalaso weyn ka jiro dowladdeegaanka Soomaalida doorashada xaggeeda koorihina gabi ahaanba la xaray maamulka talada hayana uu ku dhex jiro maamulka doorashada. ayagoo sheegay in aan laga soo jawaabin arintaasi maamulka heer sare ee federaalkuna ay iyagu iskaba fiirsanayaan waxa ka socda dowladdeegaanka Soomaalida. ONLF ayaa waxay isku waday in ay tahay xisbiga ugu shacbiyada badan dowladdeegaanka Soomaalida doorashadana aan marnaba lagula tartami karin casarna ay qaadi doontaa. hase yeeshee kaaritaanka ONLF ayaa cadeynaysa in uu jiritaankeedii wali sii jiray hadday doorashadaasi ka hadho. sidoo kale dadka siyaasiyiinta ayaa waxay ku kala fikrad duwan yihiin hadday ONLF ka hadha doorashada ma sii
sii jiraysaa mise ma sii jiri doonto. Afhayeenka mar su'aashaasi la weydiiyay waxa uu sheegay inay ONLF tahay urur qadiimi ah in badan soo jirtay siina jiri doonto iskuna day doonto shacabka dowladdeegaanka ayaysa inay kala taliso markasta. ururkan ONLF oo ugu yaraan lagu sheego 34 sano inuu ka dagaalamayo dowladdeegaanka Soomaalida ayay ahayd markii ugu horeysay uu soo sharaxo ilaa waqtigii uu doorka galay doorashada ka dhacaysa dowladdeegaanka Soomaalida. sidoo kale dagaalo xooggan ayaa laga soo sheegaya duleedka magaalada Gondar ee gobolka Axmarada. dagaaladan ayaa la soo sheegaya inay kooxda TPLF isla maanta barqinimadii ku soo qaaday halka ciidamada federaal ah oo ku sugnaa. sidoo kale dagaalkan ayaa la soo sheegaya in la soo adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. xaaladda dalka Soomaaliya ayaa maalinka ka dambaysa kor u sii kacaysa iyadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dalka ay isku afgaran lahayn maamulka dalka iyo hamsocodka doorashada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalinimadii shalay ahayd waraaq uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyay awoodii ra'iisul wasaaraha una hadda laga bilaabo uu asagu yahay hogaamiyaha siyaasadda qaranka. hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku tilmaamay arintaasi hadal aan waxba ka jirin. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inuu madaxweynaha qaranku jabiyay gabi ahaanba dastuurkii dalka una aminkan u xaybsuubtay inuu 2 sano ku darsado doorashada markastana asaga looga dambeeyo arrimaha dalka. hase yeeshee ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku tilmaamay hadalkaasi waxba kama jiraan inaana loona hoggaansami doonin shaqadiisina uu halkii ka sii wadan doono dalka Soomaaliya ayaysan in asagu lagala tashanayo. ayadoo ay maalinka ka dambaysa siyaasadda qaranku ay cirka isku sii shareerayso ayay sidoo kale mucaaradka dalka Soomaaliya ayaa iyaguna aad waxay u dhaleecayeen hadalka madaxweynaha ka soo yeedhay iyo waraaqdii madaxtooyada ka soo baxdayba ayagoo ay mucaaradku ku tilmaameen arintaasi inayna waxba ka jirin. sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa habeennimadii xalay qoraal ay soo saareen ku sheegay in arinta hoos loo xaliyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna ay ka wada tashadaan si arintaasi loo dejin lahaa. sidoo kale madaxdu waxay ku baaqeen inay madaxda dowlad goboleedyadu Garowe iskugu tagaan taariikh 21 ilaa 23 oo looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya. doorashooyinku ay halkoodii ka sii socon doonaan madaxda qarankuna ay hoos u wada hadlaan. sidoo kale qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la soo sheegayaa in maanta lagu xidhay dalka Jabuuti. taliyaha ayaa waxaa la sheegay inuu safar ka soo ah dalka Turkiga Muqdishona ku soo socday hase yeeshee diyaaraddu ay ula leexatay xagga iyo dalka Jabuuti markii uu dalka Jabuuti saa uga degay xabsiga loo dhaadhiciyay. taliyaha ayaa waxaa la sheegay xabsiga dhaadhicinta inay ka dambeeyeen wadamo shisheeye oo hadda magacadooda la dhabin. hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aad u dhaleecaysay xiritaanka taliyahaasi. tan iyo kulanti dambe wacan. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.